واركتدادي سو عاشق إمهلي اسنا عذر حنون اليوم سوعي اللي مو بدل إنا يهي نفتان وهو آمنا وإنسي إنا ذا مستعمى أياك يبان هذا واحد كصابيرين يمر قارية قاري يبستي في راسه قاري يبستي هذا يبستي وصدي waxa xigay inaan nasiib wanaag guriga soo tusto way ku hayso ay go'aan ku gaadhay inay ka hayso iyadoo qof jecel baa hado qof farta ku jecelna de caqabada ugu weyn markay guriga la soo galay igu bilaabtay ba jeelkan iyo dhibaatada iyo waxaan aan marayba inuu ani igu soo taagsado de aanu awoodii sheegto gaadh anna gaarigu halkan yaala iyo ninkoo iga tigansla ninkan waa inuu maanta nabar xun oo ka soo kiciyo ka soo kabin waaya ku dhufto ninkii iga tig iyo gaarigu halkan yaala markaan arkay ayaan gaariga cadaad ku dhac aan labada muraayadood hore iyo tanbaba dhulka dhigay hoodo ma dhinacaaga soo aday ku taageertay oo dhinacay ka soo jeestay mise ka soo jeestay ma wallahi nasiib dar waxaan nasiib dar maanta ku tilmaamo iga soo horjeestay wallahi ifka dhagar ma geline maxaa dhibay naftaydii dhalinyarooy dhool baxay la moodi wadnahatii ku dhararnay aan kala dhul sugaynaa nala kala dhexgalay doqonow jacaylow dumarkaba malay sidee ma raggaa lagu diray oo lagugu dawgalay waa mid ka mid a odhahyadii hirgalay ee laga dhaxlay mucaashiqii weynaa ee cilmi boodhari waana mid ka mid a odhahyada qisadan intii ay socotay inta badan dadku faallooyinka ay kaga dhiibanayaan qaybteena saddexaad daawadayaal ee taxanaheena ku soo dhowaada qaybtani waa bilowga walbahaarka rafaadka iyo jeelka iyo sidoo kale isfahan waaga dhex maray xamse iyo hoodo waana iridda iyo albaabkii uu xamse uga galay dhibaatooyinka jacayl ee uu la sana seeray jidhkiisana u qalay soo dhowaada waqti bay qaatay ilaa intay soo dareerisay ma yeeshay markaa nasiib wanaag way aragtay anaa la hadlay hoodo maadisa bas kan soo wada raacno ina maray bay wata cafeteria kentay suuqa ku taala marka hooyo la soo hadasho hooyo eed waxba ma cunin gaajoonaya wasidiisii naftu haysa cuntona ma cunayo amsina maras cafeteria marka waan yiri marka hore waan yiri cunto ma cunin karayo igu qasabtay hamburger yar iyo cunto aad u sii waaweyn ma cunin cunto yar fudud ma cunin karayo ama ku marka hamburger bi soo ibisay sandwich iyo sharaab marka inaan hamburger aan markaan laba jeer horeen iska daayay qof gaajo haysto deen adu gaajo cuntadii waxa xigay inaan nasiib wanaag guriga soo tusto ay ka hayso ay go'aan ku gaadhay inay ka hayso iyadoo qof jecel baa hado qof farta ku jecelna de horta si walbu qofku isku duruufadayada imeesoo si waayeen laakiin waxay diidaneen xaga familka iyo dabooqa iyo duruufahan taagan diidan laakiin ugu dambeyn ku hayso guriga ugu dambeyn way soo tustay inay ku guuleysteen guriga arko gurigiina markaan arkay daado alxamdulillah nasiib wanaag way soo farisay aanay soo shubtay ana maraaci meesho yaal iska cabay abaar baan iska seexday iska soo toos sagaalkii habeenimo soo toos marka ana muhiimadeedu waxa inaan guriga waan arko guriga waan arkay toos baan xaafadda u soo aaday waan tagayaa waan ku xaafad baska marka baskan iska soo raacay aad xaafadda suuqan kaga digay Mr. Jaamaca iska soo dhaqaay xaafadii baan toos u yimid cidna lama hadlin waa iska seexday subaxnimadii iskuulkii markaa waan dhigtaa iskuulkii markaan tagay subaxnimadii 12 markaan soo dareero doorka 12 balcadaan iska bedelaa toos baan bas ka raac asiida nayo hargeysa ilaa inta guriga way xaafadda kama qadeeyo isku shaqo meelniin waxaan arday wixii aan saaxiibka ahayn waxaan ku badawad ciyaarto war xamsi maxaa kugu dhacun bay yiraahdo marka waxay caadi ku noqotay markay iskuulka soo ruuxdo maalin walba halkaas inaan maalin walba toos iyaduna jacaylka ma kula wadaayo
wax walba khayr bay ku soo dabaalmay adigu wax walba markaan arkay inay hagaageen dee alxamdulilah rabbil caalamiin baan idhi laakiin si wax walba caadi ugu ahayeen oo dee aan marxalad wanaagsan ugu jiray ayaa maalin maalmaha ka mida waxaa guriga la soo galay labo nin askariga iyo gabadhiisii ayaa guriga la soo galay way marka kiro way laba saddex qol bay ku jirtaa inay laba qol kareystay markaa go'aan ku gaadhay inaan yahay naftaan ugu aamina uu oynisee inada mustaama ayaa kayba ana qof kaliya dee guri laguma aamini karo wax walba way dhici karaan marka aad ku taageertay anna ku taageeray go'aan baan ku wada gaadhnay markaa way kareysay gurigii markay gurigii kareysay dee waxaan idhi baaba maasha allah alxamdulilah ninkana dee markaa marmar reerkoo guriga kula jira ayaan kabahayga bumbada intaan duhurka soo qaatan marmar kubadda iska ciyaar tegi jiray marmar dhifaa gurigeeda intaan xaggan ka sii qaato xaafadda iyada ayaan xaggaa kubadda ka tegi jiray kubadda garoonkan ku ciyaaray oo kale markaasaan ka tegi jiray adigu wallaahi waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid a horta caqabadda ugu weyn markay guriga la soo galay igu bilaabatayba jeelkan iyo dhibaatadan iyo waxaan marayba guriga lala soo galay sidee wax isku bedeleen waxa weeye taade nolosheeda iyada way isbedeshay nolosheeda way isbedeshay qof walba de level marba de saraad u yara kacaysa laakiin anoo de nolosheeda de alxamdulilah maasha allah ku jiro oo arday wax bartano marna dhiirigeliso de mar wax walba la jeceshahay oo dee qof jecelna ay u muuqato ayaa waxa dhacday in ay nin askariga markaa guriga kula jiray ninka isma naqan ninka horta dagaal iyo buuq iyo qabqab baan isku baran deni anugu qof horta waan afkaabaan aho qof assalaamu calaykum ma dhaafiyo macal si walba ila hadlo kuwa aan kubadda wada ciyaarno buuq iyo qaylada kama helo iyo wax sidoo ku bilaabmay adoo noo soo ururinaya anoo soo koobay ku bilaabantay sheekada iyo buuqa ninka askariga waxay ku bilaabmatay maalin maalmaha ka mid a ayaan guriga soo garaacay isaga iga furay maxaad haysaa wiigu yidhi khayro maxaad guriga ka qabataan guuri muuyi waxaan ka qabto maxaa kaaga jira de markaa lama murmi karo igo nin askariya inuu iga awood weyn yahayna waa arka haddaan dagaal iyo buuq la galona isaga iga awood weyn gurigii markuu iga furay magacaa walaal xamsuwan cabdicasiis baa la yidhaahdaa buu yidhi dawakaas waa markaa aduu markaan isbarannay markaa hoodo waxaa ku soo biiray inay midh gaadhi iibsatay ferosa markaa gaadhigaa iibsatay ma taqaano gaadhiga dee markaa waxay noqotay inay qof bara markaa ninkuna waa askari gaadhi xaajiyadu kaxkaxay anaa ku barayuun buu yidhi way sheegto waaye waa caadi maalintii horeysay maan joogin ay israaceen garoonkan kaahba igu soo berayey ayaa anna nin iska yar mushakiyaan homeen inaasaa oo yaa ku raacun baan ku wadi inankii bay raaco yaa kula socday gabadhiisa iyo haa waa maasha allah alxamdulilah waan kaga baxay aduu sheekadii iyadoo saa u socota ayaa ninkii ninkii inuu ani igu soo taagtaagsado dee aanu awoodii sheegto gaadh waa dareemay waad dareemaysaa qofka bini aadam qofka dee ka yara xunaa dee horumarka iyo waxaad samaynaysa dhibaatada kugu wada gurigii de wixii anugu saan u fikiray dee ninka askariga ah dee markii dambe dee malaa inuu toodo damaaciyey iyo inuu anigi la ficiltamayayaan kala saari waayey wuxuu igala ficiltamayaan garan waayey nin reer leeyahay maxaa ii keenaya bal aniga markaa wuxuu gaadhay in igu diraba aan gurigii iyaduna iga baqato go-aan ku gaadho ninkan uu ku dilayaa iskaba ilaali taasay go-aan ku gaadhnay iyadiina iga baqatoba ilaa waa qof dumar qofka dumarkana wada garanaya hadba sida loola dhaqmo maskaxdiisa 10 daqiiqo wax ka yar bal lagu dili karo waxa xigay in aan ninkii go-aan ku gaadho in aan de ninkan aan anigu meel iska saaro ayaan go-aan ku gaadhay ninkan kula ficiltamay wax walbana kugu qaadato macal dhibaato walbaad la geshid afkaaban waan ku talagalay laakiin waxa xigtay in dhibaatada iyo waxaan go-aankaan qaatay waxa xigtay in dhacdo aad iyo aad u weyn baa dhacday maalin habeenada ka mid a ayaan waxaan go-aan ku gaadhay in aan ninku gaadhigan 24 hours iska wato gaadhiga 24 hours iska wato
gaadhigan inaan idhaahdo markaa gaadhigan maan jibiyeen habeenkaa laakiin cadhadii waan jibiyey oo maxaa sababay waxaan arkay isagoo guriga ka soo baxaya oo gaadhigii wata markaa gaadhigan inuu furiisitay markaa anuu i arkay ana isma tusin marka hore weyna iga shakiyey bacda iska yara bacaysnaa anna waa dabagaloon markaa malaa dukaanku ka soo noqonayay jidkuun baan istaagay ninkii waxaan go-aan ku gaadhay inaan dhabar ku dhufto de aada u culus markaa xagga dambaan markaa wuu iga shakiyey marka hore waddadii buu bedelay waddada kale soo maray waddo kale ka soo wareegay waddadii kale ka soo wareegay ayaan tii maaragtay inuu waddadii bedelay tii kale haddana usii istaagay marka anuu iga shakiyey wuxuu isleeyahay waddadan kale ma garanayo waanuu bedelay waddadii tii maray baan ana soo maray aayarun baan xagga dambe ka qaymo waa soo jeediyo dhagax baan qalkaa qadadka ka dhuftay ninka hore u dhacay markaa wuxuu jiro dee qof aan kaga nixiyey maganaysaa inuu kedistee isyara difaacayo kale buu sidii la dagaalamo awooddiisa markaa dee qof aan nabar xun ku dhuftay way awooddiisa saa usii weyn maalin markaa wuxuu go-aan ku gaadhay inuu iska cararo xagga malaa saldhiga aago markaa anna gaadhigii halkan yaalla iyo ninka iga tegeen islaa ninkan waa inuu maanta nabar xun oo kasoo kici waayo kasoo kabin waayo ku dhufto ninkii iga tegey iyo gaadhigii halkan yaalla markaan arkay ayaan gaadhiga cadheed kula dhac labada muraayadood hore iyo tan dambeba dhulka dhigay waa jijibiyey waxaa xigtay in subaxnimadii 7 subaxnimo laygu soo galo xaafadayda la yimaado askar laysoo kaxeeyo gaadhigii oliyo la wado odaya ninka askarigaas la socda saldhiga macalin Haarun ligiyo waa la xiray markaa isma lahayn uu kula talax tegaya xargan 3 jeer horena waa la xiray 3 horeba nootay waxba lagu soo deeyay markaa markii ugu dambeysana waa tan ila kacay minado waa kan ila talax tegay xargan markii la igu xukumayay noqday kii noloshayda iyo waxbarashadayda iyo saameynta aad ugu noloshayda wax walba iga reebay uu noqday waa kan ilaa iminka noloshayda aan caqabada ugu weyn aan iminka aan ilaawi karin waa waxyaabaha ugu waaweyn noloshayda aan ilaawi karin maanta marka guriga laga qaaday waa lagu xiray waxa xigay in maxkamad la geeyo oo la igu soo ogo in ninkan uu inantan yar duulaan ku ahaa oo nafteedu ku socday uu dilay hoodo ma dhinacaaga soo aday ku taageertay oo dhinacay ka soo jeestay mise ka soo jeestay ma wallahi nasiib dar waxaan nasiib daro maanta ku tilmaamo iga soo horjeestay wallahi hoodo ka soo jeestay marka waxay qaadatay go'aanka ah in Xamse iyada ku socdo inuu Xamse ku socdo waxa lagu soo yiri qaadatay gargaar malaha ilkuye haddaan gaalo habeenimana war mahayse ragyo garmiya ima garab joogtay ragyo garmiya dhammaanteen aynu la soconno qaybta afraad ahay murugada jacayl ma hadho maankayga ku yeeshay meel halis